تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal TV. caawa barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa ama maanta muhiimadda mahadcelinta. ilaahay muhiimadda mahadcelinta ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa khaliilun min cibaadihi shukuur. dad yar oo adoomadeeda ka mid ah ayaa ah kuwa wax ku shukriya ama qadariya. marka shaytaanka ibliis markuu ogaaday muhiimadda oo shukriga ay leedahay wuxuu dhaar ku maray, wuxuu ku dhaartay walaa tajidu aktharahum shaakiriin. wuxuu yiri badankoodii wax kugu shukriya ma helaysid. marka mahadcelinta iyo shukriga waa muhiim, xataa inay muhiim tahay waxa ogaaday ibliis aana ku dhaartay inaysan noqon ilaahay adoomadiisa kuwa shukriya. nabigeena allahumma salli wasallam alayhi wuxuu yiri man laa yashkuri nnaasa laa yashkuri illah. qofka aan dadka ku shukrinin ama dadka u mahadcelin ilaahay kuma shukriyo. waxay tusaale u tahay mahadcelinta inaad dadka qofka markuu wax ku sameeyo aad u mahadceliso inay tahay wax muhiim ah. akhlaaqiyaad la kasbado, akhlaaqiyaadka ugu fiican. runtii waxaa arkaysaa dhinaca guurka nabigeena allahumma salli wasallam alayhi wuxuu yiri haweenka qaar ayaa ka mid ah, haweenka oo dhan ma dhihin, qaar ayaa ka mid ah uu yiri intaasoo ixsaan ayaa u samaynaysaa, hal mar oo khalad gasho waxay ku dhahaysaa wax ii samaysay haba yaraatee ma jiro. marka ninkiina xoogaa markuu taas maqlo waxay ku noqonaysaa xoogaa niyad jab. sidoo kalena raggi waxaa arkaysaa habeenkii xaasaskii oo tacabkii caruurta, tacabkii cunno karinta, tacabkii intaasoo tacab oo sameynaya oo weli qadarinaynin oo aan u sheegaynin. ilaahay ha kugu jizeeyo, adaa mahad iska leh, la-aantaadii waxaan ma hagaagi lahayn. inuu qadariyo oo u sheego oo u mahad celiyo, taasna waa muhim. rag badan ayaa jira waxay ku leeyihiin 20 sano ayaan xaaskayna isqabnay, weligay kama maqlin mahadsanid ama jazaaka allahu khayran. taasna waxay ku noqonaysaa raggii ciil ama xoogaa yar niyad jab. raggana runtii marka la ammaano ama oo loo mahad celiyo waa jecel yihiin, waxay ka dhigaysaa libaax ayagoo dhan. sidoo kale arrinkaas mar walba waa sameynayaan. maalan rag waxaa jiro oo xaasaskoodii guryaha adeega guryaha khaasadan ragga qurba joogta ah oo dhulka inuu u hubareeyo ama dhulka u moobgareeyo ama marmar jikada isaga soo nadiifiyo. xaaskii hadday dhahdo mahadsanid jazaaka allahu khayran maasha allah culeysaa iga dejisay, ninkii mar labaad asoon labeydinin mar walbo asaa sameynayo, asaa ku dhiiranayo. waxaa la dhahaa wax lagu shukriyaa lagu soo celiyaa. sidoo kalena ninka ragga ah waxaa fiican xaaskiisa mar walba inuu qadariyo oo u sheego howsha weyn ay hayso. maxaa yeelay ma sahlana hooyanimada. inaa xaas noqoto, inaa hooyo noqoto, inaa xaas fiican noqoto, inaa hooyo fiican noqoto waa adag tahay. gaar ahaan dadka qurbaha ku nool khadaamad ma leh, wax ma leh. adigoo dhanaa waxaad dareemaysidba cidlo, waqtiga dhanaa ciriiri kugu noqonayo. marka waxay u baahan tahay in layskugu kaalmeeyo mahadcelinta iyo dhiirigelinta. taas waa muhim. sidoo kalena haddii maalan aad leedahay ganacsi ama dad badan madax u tahay ama agaasime ama maareeye u tahay, shaqaalahaaga mar walba waa inaa u sheegtaa howsha fiican ay qabtaan si ay mar labaad ugu celiyaan. shaqaalaha markii la dhiirigeliyo la dhaho waxaana samaysay, markii khalad ay sameeyaan khaladkooda aad tusto, laakiin aad si fiican u tusto, shaqaalahaas waxay noqonayaan shaqaalo joogto ah oo mar walba oo ku dhiiran shaqadii. xataa xaaladaha adag markay shirkadda ku jirto waa ku garab istaagayaan. laakiin shaqaalihii haddii aadan u mahad celin oo mar walba khaladkoodii le aad sheegto, shaqaalahaas niyad jab ayaa ku dhacayo. shaqadii dhiirigelin iyo xamaasad uma laha. shaqooyinkooda qabanayaan wax dheeraad ah ma qabanayaan. laakiin shaqaalaha oo la dhiirigeliyo oo la mahad celiyo
ikhtirac iyo waxay la imaadaan shirkadaas inay kor u kacdo mar walbo ayay ku dadaalayaan. marka waa muhim haddii aad hogaamiye tahay inaad shaqaalahaaga aada u mahad celiso. sidoo kalena noloshaada caadiga ah macnaa qofkii hadduu kursi ku siiyo baska inaad u mahad celiso. yacni macnaa wax alla wixii oo mahad celinta qayb weyn ayay mujtamaca ka cayaareysaa. marka inaan isu mahad celino soomaaliyey, aan isu shukrino, aan isqadarino waa muhim si uu usoo baxo qaran oo qurux badan oo isqadarinayo oo isu mahad celinayo. hadduu ilaahay yiraahdo jazaakum allahu khayran. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waxaan ilaahay ka baryeynaa in wadankeena uu noo hagaajiyo, uu wadankeena dhibaatada uu ka bixiyo sida ilaahay uu yani noo ballan qaada ina maca alcusri yusran. dhibkan insha allahu tacaala waa ka baxeynaa. dhibka dheef ayaa ka dambeeya, abaartan aaran ayaa ka dambeysa. inta murgeysan murugta ilaahay ha ka qaado, inta deyn lagu leeyahana deyntooda ilaahay ha ka gudo, inta xanuunsanna isbitaalada ku jiro ama guriga jooga caafimaad taama ilaahay siiyo, ilaahu jiradooda tahuur iyo qufraan ilaahay ugu dhigo. inta dhimatay ilaahay u naxariisto, ilaahay xisaab yasiira ilaahay macnaa ha u sahlo. waalidiinteennana ilaahay inta nool ilaahay u naxariisto, cumri dheer oo cibaado leh ilaahay ha siiyo. ilaahay waalidiinta dhimatayna ilaahay jannada ha ka waraabiyo. ilaahay waxaan ka baryeynaa towfiiqda ilaahay hana waafajiyo. dhibaatooyinkan iyo colaadan iyo kulli aan ku jirno ilaahay inuu naga joojiyo oo ilaahay nabad wadankeena u keeno. ilaahay hadduu ilaahay yiraahdo, ilaahay soomaaliya ilaah ka dhigo yani wadan adduunyada dhan wax ka bedesha hadduu ilaahay yiraahdo. waxay dhahaan macnaa stateki oo guul daraystay ama dowladdii guul daraysatay ama dalkii halaabay, laakiin inuu ilaahay ka dhigo dalkii ugu fiican adduunyada hadduu ilaahay yiraahdo, adduunyada dhan isku soo xirto hadduu ilaahay yiraahdo. ilaahu adaa mahad leh, ilaahu adaa mahad leh. ilaahu tawfiiqdana waafaji, caruurteedana ilaaha noo dhowr, caruurteedana ilaaha nooga dhig kuwa indhaha aan ku nuursano. jiilka cusub soo baxayana inay noqdaan jiil oo yani wadanka karaamadiisa iyo sharaftiisa soo celinaysa hadduu ilaahay yiraahdo. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر. غزون العز ترسلها بكف الحب والطهر.